haddii aynu nahay bini aadam waxaynu isaga eegnahay meelo badan waxaynu dhammaanteen leenahay dareemo maskax iyo jir isku mid ah balse haddaad si qoto dheer ugu fiirsato waxaad arkaysaa in qof kastaaba leeyahay sifooyin iyo caadooyin gaar ah oo ka dhigaya mid gaara dadka kalena ka soocaya waa xaqiiq inaanay jirin laba qof oo gebi ahaanba isku mid ah xataa haddaynu eegno mataanaha waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin aragtida waxyaalaha ay jecel yihiin iyo dabeecadaha haddaba mawduuceena maanta waxaynu kaga hadlaynaa farqiga u dhexeeya personality iyo character ama shakhsiyad iyo dabeecad personality-ga ama shakhsiyadda qofka waa mid ay fududahay in la akhriyo waxaynu dhammaanteen khabiirro ku nahay inaynu xukunno dadka innagoo nidhaahna waa qof mahad badan waa qof bulshaawiya waa qof isku kalsoon ama sidoo kale waa qof xishood badan iyo waa qof leysi ah inkastoo laga yaabo inay nagu qaadato hal kulan ka badan inaynu sugno sifooyinka noocanna dhinaca kale haddaynu eegno character ama dabeecadda qofka aad ayay uga xeel dheer tahay personality-ga ama shakhsiyadda waxaana adag in markiiba la ogaado dabeecadda qofka maxaa yeelay waxay ka kooban tahay sifooyin ay adag tahay in markiiba la ogaado keliyana la soo saari karo xilliyada gaarka ah sida xilliyada cadaadiska cadhada iyo xilliyada la midka ah haddaba haddaynu isku dayno inaynu mid u qeexno personality iyo character aynu ku horrayno personality ama shakhsiyad waa sifooyin iyo habdhaqanno gaar ah kuwaasoo sameeya shakhsiyadda gaarka ah ee qof leeyahay waa calaamadaha qofka sida fikirka dareemada iyo habdhaqanka personality ama shakhsiyaddu waxay koobsanaysaa xaaladda qof aaraa'diisa iyo habdhaqankiisa waxaana lagu gartaa oo lagu ogaadaa falgalka iyo la dhaqanka dadka kale waxay sidoo kale koobsanaysaa habdhaqannada qofka kuwa uu dhaxlay iyo kuwa uu kasbadayba kuwaasoo ka soocaya dadka kale sida bulshaawinimada furfurnaanta muuqaalka iyo sawirka dadku ka haystaan qofka character ama dabeecad waa sifooyinka maskaxeed iyo akhlaaqeed ee uu leeyahay qofku waana shayga keliya ee go'aamiye ka jawaabidda ama ka falcelinta dhacdooyinka ama xaaladaha ee uu sameeyo qofku waxay sidoo kale xadidaa qaabka habdhaqan ee qofka habfikirkiisa iyo xakamaynta shucuurtiisa waxayna dabeecaddu ku tiirsan tahay oo salka ku haysaa deegaanka inugu xeeran iyo awoodda maskaxeed iyo sidoo kale mabaadi'da iyo akhlaaqiyaadka waana shayga ugu qaalisan ee qof haysto waxaana ka mid ah daacadnimada aaminnimada geesinimada naxariista gacanfurnaanta mas-uuliyadda iyo cadaaladda haddaba haddaynu innagoo soo khulaasaynayno isbarbardhig ku samayno personality iyo character ama shakhsiyad iyo dabeecad personality waa sifooyin kala duwan sida tayooyinka shakhsiyeed iyo astaamaha qofka ee gaarka ah character waa akhlaaqda iyo mabaadi'da kuwaasoo xadida sida uu qofku ula dhaqmo naftiisa iyo dadka kale personality waa sida uu u muuqdo qofku character waa sida uu qofku xaqiiqdii yahay personality waa muuqaalka guud iyo habdhaqanka qof leeyahay character waa sifooyinka ama dabeecadaha qof ee qarsoon